maadaama aynu inta badan si joogta ah u isticmaalno shaaha. Bal ka waran shaaha aynu maalin kasta isticmaalno haddaynu daawo ahaan u isticmaalno. Haddaba, shaaha iyo caleenta muringaha oo la isku daro ayaa lagu sheegay mid ka mid ah cabitaanada ugu faa'iidada badan ee bini'aadamku isticmaalo. Haddaba aynu soo qaadana 12 faa'iido oo laga helo marka caleenta muringaha iyo shaaha la isku daro, waxaanay kala yihiin kow. Waxa lagu sheegay cabitaanka ugu fiican ee ilaa xad adkeeya korna u qaada difaaca jidhka, waana cabitaanka ugu badan ee laga helo vitamin C. Vitamin C-ga laga helo caleenta muringaha ayaana lagu sheegay inuu 7 jeer ka badan yahay vitamin C-ga laga helo liin macaanta. Laba, waxa lagu sheegay cabitaanka ugu fiican ee wanaajiya caafimaad qabka indhaha, meeshana ka saara caadka ku samaysma indhaha, waana cabitaanka ugu badan ee laga helo vitamin A. Saddex, waxa lagu sheegay cabitaanka ugu wanaagsan ee wanaajiya caafimaad qabka lafaha iyo ilkaha, waana cabitaanka ugu badan ee laga helo macdanta calciumka. Afar, waxa lagu sheegay cabitaanka ugu wanaagsan ee xakameeya dhiigkarka, waana cabitaanka ugu badan ee laga helo potassium. Shan, waxa lagu sheegay cabitaanka ugu wanaagsan ee wanaajiya caafimaad qabka maskaxda, ilaa xadna wuxuu wanaajiyaa xasuusta qofka, waana cabitaanka ugu badan ee laga helo vitamin B. Lix, waxa lagu sheegay cabitaanka ugu wanaagsan ee caloosha ka nadiifiya hadhaaga cuntada ee aan wanaagsanayn. Toddoba, waxa lagu sheegay cabitaanka ugu wanaagsan ee jidhka ka saara sunta, beerkana ka dhiga mid nadiif ah. Sideed, waxa lagu sheegay cabitaanka ugu wanaagsan ee wanaajiya marinada dhiigga ee jidhka oo dhan, meeshana ka saara inay xidhmaan halbowlayaasha wadnuhu. Sagaal, waxa lagu sheegay cabitaanka ugu wanaagsan ee xakameeya beer subagowga si dabiici ah. Toban, waxa lagu sheegay cabitaanka ugu wanaagsan ee meesha ka saara daalka iyo tacabka badan, jidhkana ka dhiga mid degan. 11, waxa lagu sheegay xanuun biyo wanaagsan, waana mid hoos u dhiga kacsanaanta xaraarada jidhka. 12, waxa lagu sheegay cabitaanka ugu wanaagsan ee wanaajiya bixitaanka timaha, kana hortaga daadashada timaha.